waxaan noqonaynaa Soomaalidii la yaqaanay waxaan noqonaynaa Soomaalidii caalamka sharafta ku lahaan jirtay ayaan noqonaynaa ma sha Allah shalayta waa soo galay warbixin baan idin siiyay oo confidential ma sha Allah wadnihi ba rag wada gariiray magaranaysaa dadkii nimankii ayaga ahaa waxa isku dhaxyaac badan baa ayaa magaranaysaa dhaxal waana xaqiiqda weyn waxaan idinku yiri diyaaradii ku soo xadgudubtay awada Soomaaliya waa tooy waxaana dhaxtaa la magaalada Kismaayo ma duuli karto magaraysa waxa hadda lagu dhagan yahay oo aad iyo aad lagu dhagan yahay oo maqli doontaan hadalkaygana waana confidential weeye sir badan nadiisin ma diyaaradda la yiraahdo shirkadda la yiraahdo Juba Airways hadalkayga shirkadda la yiraahdo Juba Airways maxaa meesha ka soo doonto baloog ku qabo kan nacala wasaq sagatag meesha baloog qabanaya fiir shirkadda la yiraahdo Juba Airways shirkadda la yiraahdo u kala goosto ama ka dhax shaqeysto Soomaaliya iyo Kenya ama Soomaaliya ka dhax shaqeyso shirkadaasi hadda waxa weeye way dhawaaqi doonto wad maqli doontaan laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay waxa weeye there is no way gaarigan aan wada registration buu leeyahay registration kiisa dawlad baa siisa magaca company-ga aan ku shaqeysanayo dawladdu ka register garisay there is no way gaari taraa kale intuu registration kaga qaato kuma meel mari karo qoladii dawladda iyo qoladii authority wixii dhow magaraysaa waa la wadiina how I get this authority magaraysaa gaarigan ku dhaxmaray laami waxyaabo badan shirkadii waa dhawaaqi doontaa shirkadii waxa weeye excuse-keedu waa farabatay way kala hadlaysaa laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay waxa weeye in meeshan lagu soo xadgudbay qarnimadii ummadda Soomaaliya lagu soo xadgudbay in meeshan uu qalad weyn jiro waxay dhuuso moodayeen oo ciyaar moodayeen yaa wuxuu ku noqday international crisis xarb ku noqday adduunyadii sidaan idin sheegay waxa weeye waa dhawaaqaysaa waxa hadda miiska saaran oo ayadana confidential idinka daba geenay adduunka wadamada reer galbeedka sida magaranaysaa America ama Europeanka waxay aaminsanayeen wadamada Afrika ama wadamada Carabtu inay yihiin wadamo la jiro wadamada reer galbeedka la jiro si isku wada jirna ay ula dagaalamayaan argagixisada okay hadda maxaa meesha yaalo oo la suggest waxa la lacala waxay dhici karo maadaama Kenya dhageysta Kenya horta waa u dhamaatay Kenya waxay gali doontaa in buuq badan iyo dacwooyin badan ba horta ku imaan doona hadalkayga dhageysta waa confidential way waxa hadda suggest miiska saar oo la suggest gareey maadaama Sharif Sakiin iyo Ahmed Madoobe iyo Cabdikariin Guuleed ay magaranaysaa intay Kenya tageen iyo rag ganacsatayaal Soomaali intay Kenya tageen loo fududeeyay diyaarad xamuule oo qaadi karto 30 qof oo magaranaysaa culays miisaan la saari karo inay intay baxeen loo fududeeyay loo kareeyay waxa weeye waa security breach waxa la meesha ka dhacay okay maxaa hadda miiska saar oo la suggest gareeyay waxa la suggest gareeyay maadaama arintan ay fududaatay oo loo fududeeyay qof wall lorry dhageyso oo dawladii aysan aqoonsanayn oo beesha caalamka aysan aqoonsanayn oo magaranaysaa nidaamka dawliga Soomaaliya ka jiran aan laga aqoonsanayn oo dawladda Soomaaliya ay space-keedina ay sharci ka soo saartay in loo fududeeyo group ka soo horjeedo dawladda Soomaaliya oo qoriyo wato oo dagaalami karo oo magaranaysaa damage daawac gaarsiin karo dawladnimada gaarsiin karo maadaama loo fududeeyay hadda waxa la suggest gareeyay oo Kenya eedda hadda ay wajahayso iyo Sharif Sakiin iyo siyaasiyiin badan oo Soomaaliya eedda ay wajahaysaan idin sheegeen al-shabaab iyo al-qaacida waxay sameyn karaan baa la yiri dhageysta al-qaacida iyo al-shabaab iyo ISIS waxay sameyn karaan maadaama wada cusub oo aysan niyadoodii qalbigooda ku jirin ay hadda subax al-shabaab iyo al-qaacida waxay sameyn karaan inay Cabdikariin Guuleed ama Sheekh Sharif Sakiin ama Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweyne horta Soomaaliya ama siyaasi kale oo Soomaaliya al-shabaab intay u tagto guryahooda tagto oo caruurtooda soo afduubtaan dhageysta oo caruurtooda soo afduubtaan oo ay magaranaysaa hostage ahaan u soo qaataan oo ay meel ku xirtaan in Xasan Sheekh Maxamuud ama Cabdikariin Guuleed la yiraahdo kaalay caruurtaada iyo reerkaaga iyo guryahaaga waan dilaynaa waan qoortaan u dheereynaa waan qowracaynaa haddii kale orod bax lacagtan qaad noo soo kiree diyaarad noo soo kiree
dhageysta haddii kale caruurtaada waan dilaynaa oo ehladaada waa qowracna intii hostage ahaan loo qabsado way dhacdaa adduunyada marka ninka siyaasiga asagoo caruurtiisa badbaadinayo fiiri asagoo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo familka hooyadii iyo aabihii badbaadinayo oo al-shabaab ku qasabto wuxuu aadi karaa Nairobi wuxuu soo kareen karaa diyaaradii loo soo kareeyay Ahmed Maafi iyo groupkiisa loo soo kareeyo kaleeto yaa loo soo kareen karaa maxaa dhici kara marka al-shabaab diyaaradda markii loo soo kareeyo ninkan hostage caruurtiisa loo soo kareeyo iyo diyaaradda al-shabaab waxay ka buuxin kartaa miinooyin qarax iyo magarasa waxyaabaha qarxo dhan bay diyaaradda ka buuxin kartaa waxay sameyn kartaa markaa waxay ku qarxin kartaa meelaha ay rabto ee muhiimka iyo ku qarxin kartaa waxaa dhacay adduunyani waxa ka dhacay security breach baa dhacay marka ayagu waxay islahaayeen Axmed Madoobe iyo groupkiisa lagu yara xumeeyo Axmedobe iyo groupkiisa lagu yaro xumeeyo oo hawadii halaasana dhacay anaga aan ka hadalna Cabdikariim Guleed baa soo degtay waxa soo degtay magarasa Shariif Sakiin baa soo degtay Axmedobe diyaarad baa soo degatay Kismaayo diyaarad baa ka soo degatay waxyaabo noocaas inaan anaga ku mashquulno oo anaga aan ku wareegno oo anaga magarasa nicniic iyo qiyaal ku jiro adduunkii weynihii baa qaylinaya oo security breach baa dhacay waa suggestiga hadda yaala way maadaama raggan ayagoon la afduubin caruurtoodii maadaama ayagoona xaalad crisis aysan jirin maadaama ayaga oo qalbigooda iyo aqligooda uu fiyow yahay intay baxeen ay tageen Nairobi Kenya u fududeysay xukuumadda Nairobi joogtana ay u fududeysay in rag aan dawli ahayn oo damage kasta iyo dhibaato kasta oo dhacda meel loo raacdo aan lahayn inay tageen Nairobi loo fududeeyay diyaarad xamuul qaado inay gacantoodii soo gashay waliba ay ku duuleen hawad dal kaleete oo waliba hawada dalkaana shuruuc iyo sharci ay ka taalo oo la yiri diyaarad kasta oo soo galaysa dalka Soomaaliya waa inay soo martaa magaalada Muqdisho والله ربنا سجستي هذا هذا بيسك الدوينة سكورت كونسولك يباش عالمك وليبقى أمريكا يوروبيان كأنت سهرت هذا الكلام بس هديب أي على الرجل أيجا أو أن لا هوستج لوهيشن أو حالات كلو كرايسيس أي سنجر دبعتك لنا أي سنجر إن أنتي بحين نيروبي تجن لو فدو دي ديارات إن يسوق عتان هو دل كلا أو حرن أي لصقلين وحدي كتاليري إن رجل سياسيين سوماليات أي قبلياشة أي أن فكرين أنا قانت في عالهين أي مجرنا يساي أنا أي كيو جود شقينين عالم كسيدة وشقية أن لسعنين وحدي كتاليري إن ريره هذا يجريه هذا لا أفضوبته هذا الكي كذا ليش جريه هذا ريره هذا إن لا أفضوبته وهستج أهان أرجع حسده وقبضته اللي يري هذا قاعدة هل كان $1,000,000 قاعدة أو أرض الناس كريه الضيارات أو قلوين أرجع حسده مركا أيده بم يبلاي أنت كبر حس يسوسي يكوكر حسه ملاه مهم كعالم كيكوكر حسه وسكورت بريتشوي هذا الكي هذا الكيست رجي واحد وسمو ذيين وإصلاحيين دقبلوا إياه جرى ساعد ضد السوشيال ميديا سوقل ديارات باك شدك تايكس معي هلا يرادو وحاول يباش عالم كيبه هردد كعدي رجي وحاول يهرد الآن بكون عدي وفشل من حالات ضد وبرق النحى حالات ضد وحاول وقصنتها هذه بقصن وسجست وارنت هذا ميسك صارن أد كات كلوجر فينا marka halkaas saan xaaladda kaga tagay diyaaradii waa qashin waxayna dhax taallaa magaalada Kismaayo taalla ee boorkeeda baarkin bay ku jirtaa weyn ku daxalaysan halkaasay ku daxalaysan halkaasay taali halka laga qaadi maayo insha Allah haduu ilaahay okay qodobkaas maanta waxa gudoomiyaha mugaraysa magaalada Garowe gudoomiyaha Garowe Mr Deni ya diyaarad soo raacay intaana diyaaradda Deni aan galin baan waxay idinka dabageenay حالدن سكورد بريج كان مركو صوبح إباش عالم كأرنتن أي أركتي وحال أركي الصومالي مدام أي سبيس كلا سوريت مدام فوضى أي سعود مدام الصومالي أرجع حساء كدرت باش عالم كي أو يوروبيان كي يناتو يونايتد ستيت أوه الريان ديارها مراكيب الديارها قاعدة ميجا قاعدة وحال يرادا ايكرافت كارير باليرادا وويناء ديارها ميجا كدولان ولا سو دوي وحلو سو دوي انديان اوشيان كي يلو سو دوي ميل اجرت 24 كيلومتر يا لغو باكيم غرين
halkaasaa diyaaradihii magaranaysaa hawadii Soomaaliya lagala kantaroolaya diyaarad dambe oo magaranaysaa aanan si sharci ku duulaynin diyaarad dambe oo aan nidaam dawli ah ku duulaynin laba diyaaradood ba ka soo dulkacayo laba diyaaradood saddex diyaaradood ba waxay ka soo kacayaan maraakiibta ka soo kacayaan dhageysta maraakiibtaas ka soo kacayaan diyaaradda dhibka garanaysaa haddii ay diido waxa weeye aad iyo sida caalamka iyo nidaamka caalamka jiro yaa loo isticmaalay waxa kale oo Turkiga maalin weytoon idii sheegay oo ayadana si degdeg arrinta markay soo baxday Muqdisho garoonkeeda ku baarkim gareysan oo la keenay laba diyaaradood oo Turkiga ay leeyihiin aad iyo بايلوديو لما بايلود إلا صدق بايلود نوالله صدر ما شاء الله أو عاونه يصير temporary أو مجرد ساي كميل جاره وعاونه يجنا والكين أوكي دي هودي سوماليا بيش عالم كودم بهاد نده كويس وحال قاضي إلى أني وحاوي نمكن أرجع حساد أحمد مذوبي جروب كيسة ما في هذا وكاتيل ودرا كاتيل كي مكسيكو ودرا كاتيل كي كولومبيا ودرا كاتيل كي سنترال أمريكا كلها تعمل حالة كلها تكبلات يس وحاوي أمريكا نفتك حالتها هو كدرتها مكسيكي كدرتها وحدرت درا كاتيلكا ديارتها نوعا أي شريف سكين يا أحمد مذوبي أي كريستيان وكل كريستيان حشيشكا يا دراجسكا كوكينكي كسو بوحيان هوذا مريكان يجوا حكوسو قلان سوسايد الحوق بكسو قلان مركا مريكا كورو ذا ديارتها يرون كير مع الدراجس كود وصلق رحيا مركا ديارتها هذا باللاودي وحاوي وضع الشباب هي القاعدة هي ايسيس افري ومركا وحاوي مريكا كي عبسي بدن بالسو وجهدي يوروبيان كي عبسي بدن بالسو وجه بكوز بيس وين او جيبوتي كو يالا مركا ديارadahan sidan xalay shalay idii sheegay waxay damage gareynayaan diyaaradaha xumuulka qaado ee ku safraya hawada Soomaaliya ama geeska Afrika ku safrayo iyo shil geli karaan waxa looga baqayaa inay magaranaysaa sidaan idii sheegay al-shabaab inta gacanta u galaan qaraxyo laga soo bixiyo cirka la iska weerar hadda meesha baabuur laga filayay in laga weerar marka hadda arinta hadda taagan ee la suggest gareynaya laga baqay waxa weeye diyaarad aanan Soomaaliya oo magaranaysaa authorize gareynin oo ana fasax siinin hadii lagu arko ay isbiiska East Africa ama ay isbiiska Soomaaliya lagu arko diyaarad aan fasaxaysanin oo si loojige oo aan si dawli ah ku duulan dilarka waxay dawladda Soomaaliya fasax ku bixiso ilaahayo meel 20aad kumanaan kun oo qof oo shacab saaraadaan diyaarad aan fasaxaysanin oo si dawli ah ku duulan hadii lagu arka hawada Soomaaliya waxa Turkiga iyo magaranaysaa NATO iyo beesha caalamka Security Council-ka waxa amar loo siiyay in ay barta ay taagantaa lagu qarxiyo barta ay marayso in lagu soo rudo dhageysta halka maqashan okay baylodyadii soo duuliya diyaaradda Kenya leysiki bay kala noqotay xaalad kale intaan dani galin baan idin wadaa Kenya markii security breach-kaas uu dhacay oo arinta soo baxay yaan wax yar idin sheegay dhageysta marka Kenya muddo 20 sano aviation-keeda dagaal bay ku jirto adduunka inuu aqoonsado especially Mareykanka inay aqoonsadaan diyaaradda Kenya ama aviation-ka Kenya shuruudo badan baa lagu xiray inay shuruucda caalamka ay raacaan okay Kenya waxay islahayd Axmed Madoobe iyo farmaajo iyo khayr iyo Soomaaliya duqbilow quje oo waad magaranaysaa ku awood badan tahay okay Kenya muddo 20 sano waxay raadinaysay director fly oo ka duulo sida Ethiopia Airlines waxay ka duuli jirtay Washington waxay ka degan jirtay Addis Ababa Liberia miya miskara South Africa ayagana diyaaradda noocaas Kenya sanadka hadda aan soo dhaafnay 2018 yaa loo fasaxay muddo 20 sano yay waxay raadinaysay oo dagaal ugu jirtay aviation-keeda dagaal ugu jireen inay hesho direct flight or United States because waxay leedahay air commercial weyn bilaa Kenya Airways oo diyaaradaha Afrika ugu weyn bilaa Kenya last year 2018 kii waxay heshay direct flight Nairobi to New York to Nairobi ana waxaan ka raacay rodo blo marka xamar tagay Minneapolis diyaarad ka raacay New York bay geysay diyaarad Kenya Airways baan waxaan ka raacay New York City waxay si toos iga dejisay Jomo Kenyatta Airport arinta marka ayada dhaqaale badan baa dalka Kenya ka soo galay waxa ka soo galay economic badan waxay ka helaysay sharaf badan challenge ee Ethiopia Airlines ay kula jirtay iyo South Africa Airlines ay kula jirtay bay ku guuleysanaysay waxyaabo badan oo magaranaysa kaga xiraa iyo sharaf badan bay ku heshay markay arinta soo baxday shalay tomiya meesh daraato waxa la suspend gareeyay oo hakad la geliyay oo baaritaan lagu wada oo hakad la geliyay flight ka duuli jiray Nairobi Kenya to New York
oo direct flight ka Mareykan to Canada Mareykan to Kenya waa la suspend garay sababtoo waxay gashay Kenya violation oo aviation ka gashay sababtoo diyaarad ka duushay wadankeeda oo sharci haysanin oo aan nidaam haysan ya airportadeeda Wilson Airport iyo Jomo Kenyatta Airport ka duushay waxay u duushay dal hawadiisu xirantay very good waxay Mareykanku warbixin ay soo saareen ay yiraahdeen maadaama xaaladdu ay sidaa tahay oo arintu ay noocan tahay dadka Amerikaanka ah ee aan u fasaxnay inay direct flight ka qaataan New York ay ku tagaan Nairobi ku tagaan it is a risk wa very risk way suicidal way kay sababtoo al-shabaab gacanta u gali kartaa diyaaradahaas waxaan lagu qarxin karaa diyaaradaha Mareykanka iyo Kenya marka iyadu waxay dhuusan moodeysay waxay ciyaar moodeysay waxay kaftan moodeysay yaa wallahi oo billaah shuma ku noqday waa laga kansalay kow talabada ugu horreysay dawladda Soomaaliya qaado iyo beesha caalamka qaada direct flight ki Nairobi to New York ee Mareykanka ka bixi jiray waa la kansalay waxa kale oo ayadana hadda ku soo xigo oo maalimaha soo socdo ayagana hakad gali doono diyaaradii u kala gooshi jiray Nairobi to Europe Amsterdam ama Heathrow Airport ee London u kala gooshi jiray ayagana suspend baa ku soo socdo howsha way socotaa sababtoo waxay ku xadgudubtay Kenya oo si toos ugu xadgudubtay hawada Soomaaliya iyo safartiga Soomaaliya iyo si toos ugu xadgudubtay halkaaga dhig marka maanta marka waxa dhacday halka waa Kenya xaaladaha dhacay ma sha Allah waa confidential way dadka la u sii sheegina waxa way waa si secret band ku sheegaadiyad waxa dhacday ninkii Dani gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha magaalada Garowe magaranaysa ee Puntland yaa wuxuu dhahay waxaan u duulayaa Kismaayo diyaarad bay raaceen Boosaaso la tagay Balaayaa la tagay kana la tagay ma duuli karaan diyaarad aanan fasax aanan ka haysanin airspace-ka Soomaaliya aan ka haysanin ma geli karto sababtoo al-shabaab laga baqay sababtoo al-qaacida laga baqay Allah sheegay waa la hadlay dari diyaarad baa kici weys dhageysta diyaarad baa kici weyday diyaarad baa haween noqotay diyaarad baa maalin noqotay diyaarad baa casar noqotay diyaarad baa gaas ka go'ay waxa qiyaali diyaaradda isku gurtaan fuulfuula fowdadii way soo dhamaatay isdaba yaaci uu soo dhamaa ama qabiil baa shaqayn ama dawlad baa shaqayn haday dawladda shaqayn weys waa lagu kala dhaqaaqay Soomaaliya ama dawladda ay noo shaqayn dawlad power loo awood leh oo hawadanada controlsho oo power kana imgaraysa border kana controlsho oo shuruucdeeda loo hoggaansamo yaa imaanayso ama fowdada warlord ka soo soconay marka haddaanu nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed annagu waxaan matalo annagu magaranaysaa si dastuuri oo mandate noo matalo waa madaxweyne Maxamed Abdullaah Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Al-Qeer anaga matalo labadaas madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaareyaal noo gudoomiye gobolayaasha meelaha warwareegay wax badan annaga magaranaysaa noo soo kordhin maayaan okay waxa dhacday Dani saaka diyaar aroorti markay ahayd yaa diyaarad la isku guray diyaarad bay iska buuxiyeen macalkii magaranaysaa afyeenkii madaxtooyada saaxiibkeeda Barani balaayo oo dhan diyaaradii baa la isku guray waxa la yiri waa la doolay ma hoo baawur hoomay baa saaratid baawur caasi miyaa saaratid warigi waa qoslay diyaaradii baa la guray haddaan doolayna haddaan u soconaa Kismaayo haddaan baxayna haddaan dhaqaaqayna haddii diyaaradda doolaysa haddaan la baxaya haddaan la dhaqaaqaya haddaan la diyaaradii baa lagu guray marwala soo degan marwala fuuli you know why 24 kilometer ya maraakiibta ee kariirka loo yaqaan diyaaradaha qaado ya 24 kilometer meel u jirto Soomaaliya xeebteed ya la soo istaajiyay waxaana fasaxsiiyay dawladda Soomaaliya ayaa fasaxsiisay waxa kale oo Muqdisho ku sugan laba diyaaradood oo dawladda Turkiga leedahay oo si mucaawine oo temporary ula shaqeynaya dawladda Soomaaliya ula shaqeynaya markay fuuleen damcayna ignore gareeyaan switch gareeyaan magaranaysaa baalko switch gareeyaan ayagu suusar waa loo sheegay waxa lagu yiri if you turn off the diyaaradan systemkeeda iyo GPS-keeda iyo radarkeeda hadaa damisaan oo idinku aragna hawada Soomaaliya aan dareeno radar qabanay jira aduu ku hormaray si kasto diyaaradda loo damiyo oo radarkeeda loo damiyo oo magaranaysaa waxa lagu la xiriiro dhantaan of looga dhigo oo damcaan inay suusaadar sameeyaan oo ay magaranaysaa Kismaayo ku imaadaan waxa weeye Mareykan iyo European iyo Turki waxay hayaan qalab sheegayo diyaarad unknown ay leedahay numberkii ma sheegayso laakiin unknown leedahay unknownkaasi waxa wato waa al-shabaab unknownkaasi waxa wato waa al-qaacida unknownka diyaaradda duulayso waxa wato waa ISIS oo rabto inay qarxiso oo isku qarxiso suusar sameeyso bambaasa inteena bamka diyaaradda dadka lagu dilin oo shacab badan aysan garaafanin oo magaranaysaa damage badan aysan gaarsiinin waa la qarxinaya bartay joogta lagu qarxinaya Dani waa loo sheegay diyaaradii bay isku gureen way fuulay waxa lagu yiri
fasax dowladda Soomaaliya miyaad ka haysataan كثير دولة الصومالية فسحوا ما بهن وحلوري دلك الصومالية دولة باكجرتو مالويتو سكورت بريج بعدعي بارتاني انفستيجيشن سعود وحن كعب ثقة بنا بالويري ون آدي هذا كعب ثقة بنا إن ديارضها عن أنهم كدولة شرع الآن الدولة يهوين كجيس كأفريقيا إن مجرد سنة بتكلم هديات جوفرنر كتاعي قل مدو محوا بدلن تاعي وحن كوجو advice كوجو سيرنا we not gonna tell you كم ده هنا الويري جوج أما دقائق كم ده وحن advice كوجو سيرنا oo aan kugula talinayna inaadan diyaaradan raacin oo aadan duulin ba kugula talinayna sababtoo ah diyaarad aan dawladda Soomaaliya aan fasax ka haysanin oo aanan ka haysanin magaraysaay authority aan ka haysan fasax baan anagu hadaanu nahay NATO iyo hadaanu nahay Turki iyo hadaanu nahay beesha caalamka iskurid ka soo waxay dawladda Soomaaliya authority noo siisay inaan ka kaalmayno kana caawino argagixisadan Soomaaliya kala dagaalamayso dhulba kala dagaalamayso raba inay muwaadiniinta Soomaaliyeed waxba galabsan inay dilaan rabaan waxa fasax weysanaa lagu yiri inaan diyaaradda soo rudno inaan waxa doonno ku sameey karno okay waxa lagu yiri markii hadii waxaan kugula talinaynaa oo aan tala kugu siinaynaa inaad ma garanaysaa diyaaraddan aan raacin arrintaani waxa ka horeeyay 5 wasiir 4 wasiir صادق صاحبكي وزير كريمه دبده وزير كله توم عيسى قرر دور وزير بالله دري ودقنين بهاين وونين لو دري waxa lagu yiri dawladda Soomaaliya in la tijeel raba annagu dadkii Puntland laga soo wasiiradii way xaq tagay annagu dadkii Puntland laga soo dooranayna wasiiradii matali Puntland bana dalkan fowdo inay sii socoto beesha caalamka doorimayso ummadda Soomaaliyeedna doorimayso dani wad cusubta dani maamul goboleedka governorkeedii baad dani waxa lagu yiri fowdadan ka bax dadkaas biyo u samee ceelal u qod laamiyudis shaqada garawe iyo galkacyo boosaaso u baahanta qabsa lagu yiri hala jaaljigra dawladda waxaan kugu wargelinayna bal lagu yiri oo ku sheegaynaa in diyaarad aan fasax ka haysanin oo fowdo wado inay aadi karin Kismaayo diyaarad walba waa inay Muqdisho timaada diyaarad walba waa inay Muqdisho timaada la kantaroolaa amnigeeda kadibna loo fasaxaa magaalada Muqdisho hadda inta sameeyeen waxaan kugu wargelinaynaa in dawladda Soomaaliya ay ka caawin doonto Turkiga iyo NATO iyo waliba America oo kaalmeynayso in hawada Soomaaliya ay la skurid gareeyaan oo mar dambeeto dawladda Soomaaliya diyaaradaha ay fasaxa u siisay aan cabsi la gelin cabsi dambeeto algil dani arrintaasi raggi Soomaaliyeed ama raggi ku beesha ahaa ee wasiirada ay barta loo diray way ka dhagaaday maanta markay diyaaradda fuuleen waa confidential way dadna u sheegina aad diyaaraddu waxa la yiri way kiciwaysi diyaaraddu waxa la yiri way hawe no waxa laga soo wacay maraakiib u dhan Muqdisho laga soo waxa lagu dhagays waxaan kugu wacyi gelinaynaa inaan diyaaradda raacin waxaan fasax u haysanaa inaan diyaarad annawna haddaan ku dhax aragna hawada Soomaaliya in argagixisada to aan dareensanahay way soo rudeen algir dani waa baqay wuxuu yiri naga daadiya diyaaradii ba sidii baabuurka caasiga ahaa hoomiga ahaa la fuulay haddana wuxuu yiri dani war naga daadiya nagu celiyo garab aad waxaan waa inay kala dambeyn timaada waxaan waa inay dawlad timaada waxaan waa inaan nidaam yimaado waxaan waa inaan dal helna waa inaan calal helna weeyadeen ma soconayso ana diyaarad raaci fowda soconay buuqa jiri qeyliba jiri ma shaqeynayso hadalkii waxaasi ma shaqeynayaan mana soconayso masha Allah marka update ugu dambeeyay kaas weeye Soomaaliya waa guuleysatay dalkanagana wuu guuleystay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ilaahay cimrigooda ha raajiyo fowdo dambe iyo woolor dambe oo na garab ordo iyo reer dambe dawladda la challenge gareeyo waanu soo dhameynaa aad ba soo dhameynaa aad iyo aad yaana u soo dhameeyna wala soo afdir Soomaaliya guuleysan dawladnimada guuleysan shacabka Soomaaliyeed ba guuleysan ummadda Soomaaliyeed ba guuleysan niyada khayr loo sheegi dalkan anaga iskale boodarkiisa anaga heynana aad waxaan idin sheegay marka ugu dambeynta ka sii baxaya idinku maansan shaqo gal kuleel badan hadda qabow yimid hadda kuleel badno yimid Minnesota waa funny way waa isbedelaysa weatherkeeda aad marka waxaan idin leeyahay niyada khayr u sheega midda kalena Axmed Madoobe madaxweyne baa madaxweyne kama ah Jubbaland habraaci doorashada iyo qaabkii doorashada loo qaban lahaa dawladda Soomaaliya maalin way warqaday soo saar waxa Jubbaland ka dhici doonto doorasho xor iyo xalaal ah waxay dooran doonaan madaxweyne reer Jubbaland bay dooran doonaan markaas Soomaaliya nidaamkeedii iyo magaraysaa iyo quruxdeedii iyo sharafteedii baa barnaanka imaan doonto Soomaaliyana waa la ixtiraami doonaa dhageysta waxa kale oo shalayta lagu dhawaaqay guddiga farsamada ee dawladda laga dhisay maamul goboleedka Galmudug laga dhisay iyadana shalay lagu dhawaaqay ma sha Allah dawladdu waa soo dhaweynayna aad iyo aad buu soo dhaweynayna Axmed guruubkiisa waxa leena mar
ها قرك والدين يا قرك إلا مدحونا الرسمي وكي ماذا ما من قبلتك جبلا لو دورتي دولة كل يشتو قرك ساو وصعري يادي وبحي إذا قارك ويناني يادي نجي سمرك أحمد مذوب مدحونا ما أحمد هو اللي في نعاري باش عالم كان مردو بلاك ليستيا كدر دوت إلا هذا ولا غرفيريا ورر 72 أبرك تطبعات إلا بدأ ساعة صوص عطو وسيدا إذن يجي هذا الجولس تطبعات إلا بدأ ساعة صوص عطو باش عالم كهل دونتو كينيا هل دونتو ضد بدن هل جرين وهل دونان وحنا دلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي شير جري سي جود بي وركي فرحة الله كاسويا آد بندين سلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته